السلام عليكم. ma ka mid tahay dadka intaasoo sano ama 2 sano ama bilooyin intay wax ku jiraan luqad dhameeyaan koorsooyin qaataan dhowr iyo 10 sac 20 sac 30 sac haddana aan wax dhisi karin issues ma ku haystaa haddii dadkaas aad ka mid tahay qaladaadkan soo socda sameynaysaa waxaan ku sheegi doonaa xalkeeda iyo sida ugu gudbi karto. Horta marka aad daawanaysid koorso programming ah ama tutorial ama koorso ama jaamacad ama meel walba ay tahay isku day inaadan wax xifdinin horta number 1. number 2 isku day inaadan copy paste sameynin. macnaha waxaan hadda baranaysaa hadda kugu horeysaa ha sameynin in wax walba copy ah soo dhahdo. So copy kaliya ma ah inaad line ka dhan soo copyayso paste soo dhahdi ma. waxa kale kamid ah qof oo waxa arkaysaa ma cashar u daawanaya ma documentary u daawanaya ma film u daawanaya aadan kala sheegi karin. sababta ku sheega code-kii la qoraay macalinka uu qoraayay markuu macalinka let dhaho asiga hor let oo kale let name equal xamuda oo kale line kaas oo macalinka qoray asiga isla markii soo koobiye qor ha koobiyeen xataa hore ka qor let name xamud macalinka markii uu dhameeyay casharka asina waa dhameeyay code qoritaankiis hay su'aal marka laga weydiiyo ama maxaa ka fahantaa la dhaho ani waa dhameeyay ma fahmi wax ma ka fahmi kartid. Okay, conceptiga hadda aad soo qaadatay su'aal ka soo qaad loop la sharxay. So loopkida same hadii samee lagu dhaw mar kale ma sameyn kartid. Sababtu maxay tahay? Ilaa aad filna fiirsata 10 ma daawanin. So si aan marka sheekada filimka documentary ugu baxdid oo wax ay ku noqdaan wax maskaxdaada ku qorma oo adiga ka faa'iido even xataa programming language walba hadhowda u isticmaali kartid conceptigan qorshahan samee. Number 1 horta marka aad tutorial daawanaysid ama course daawanaysid isku day in aad wax fahanto. isku day inaadan wax xifdinin. Programming xifdin ma hadda xifdiso tusaale JavaScript xifdis from start to finish. hadhowdii luqad kale lagu dhiibo Python ma sameey kartid sababta aad JavaScript ku dhagan tahay. dhinac kale ma ugu leexan kartid. even hatii shaatiga wax yar loo soo bedelo su'aasha hadii lagu weydiiyo hadii wajiga kale loo soo sameeyo ma ka jawaabi kartid. sababta maxay tahay hal waji wax u baratay taas ma qalad. Programming waxa la rabaa problem solving way in issue maskaxdaada uu ku xirmaal raba hadhowdii aad ugu jawaabi karto nooc walba dhinac walba laga soo weydiiyo su'aashaas inaad ka jawaabi kartid laga rabaa. see marka ugu jawaabaysaa arrinkaas. number 1 waxaan isku raacnay inaadan wax xifdinin. number 2 waxaan isku raacnay in macalinka aadan hore ka raacin copy inaadan sameynin inaad isla markii wuxuu qor hore ka qorin. maxaa xalkeedii yaa markii number 1 horta isku day markii casharka la sharxayo inaadan hore wax ka qorin computer inaad hore ka aadin. ka soo qaad video waxaan daawanaysaa 10 daqiiqo ah oo lagu sharxayo sida functionku u shaqeeyo ama sida loop u shaqeeyo aan lagu sharxayo luqadda rabta ahaato mushkilo ma laha. isku day inaad soo qaadato book iyo qalin intaadan aadin. dadku waxay dhaheen book iyo qalin waa laga tagay niyo computer wax wala digital way mobile haystaa no book iyo qalin wali muhiim waay. aniga aan macaas waxaas leeyahay book iyo qalin la'aantiis wax ma bari kari baan adiga tijaabi see kugu shaqeysa arag book qalinkaaga soo dhigo videoga daarad shaax kafee waxa aad soo qaado mushkil ma laha. videoga marka macalinka uu sharxaad bilaabo isku day in aad u istaajiso point by point. ka soo qaad video 10 daqiiqo waan dhahnay 2 daqiiqo ugu horeyso waxba ha qorin 2 daqiiqo ugu horeyso daawo macalinka wuxuu sheegay function u sharxay. okay function saas waay good hebel saas waay functionka waxa loo qoraa sidan functionka waxa loo isticmaalaa sidaas sababahaas aan loo isticmaalaa. functionka wuxuu qaataa parameters. functionka waxa loo talgalay in shaqooyinka soo laabto aan loogu maarmo oo hal mar inta wax shaqo qabatid halowdii aa wacatid. macnaha ka soo macalinka dhowr concept ku siinaa waxbuu ku sharxaa. conceptiga koowaad marka oo maskaxdaada ku soo dhaco qabo note garay. so note ka u qaadanay marka note waxa ku qaadanay based on question waxa markaas macalinka uu sharxay maxaa ka fahantaa adiga. okay waxaan hadda note ka qaadanaysa function maxaa waayo dhay macalinka function saas waa adaa ka jawaabay adaa isaga jawaabay macnaha function nooca saas waa. okay maxaa loo isticmaalaa niyo function waxa loo isticmaalaa sidaas. okay waxaan oo la baasbaasay maxay yihiin parameterada oo function ku jiro maxaa loo isticmaalaa maxaa loo talgalay macalinka uu sharxay. okay waxa loo talgalay in hadhowdii markii waxaan dynamic ahaan ama value ahaan inuu soo celiyo in lagu base gareeyo oo kala loogu talagalay. okay waa note garaysid. okay syntaxkiisa loo qoraa. okay function syntaxkiisa function laga bilaabayo. okay luqadda in waxa loo baasa magaca function ka baxsanay kadibna
parameterskii wixii ku xijinay kadibna syntaxkii iyo qaabkii diiritaan iyo wax uu jiro ayaa la sameynaa. Believe me, mar kale ma kugu soo laabanayo function iyo shaqadiis. meeshaas fahamka ka qaadatay luqad kasta oo programming hadii lagu keeno waa ku dabaqi kartaa. kaliya waxa fahmay syntaxka oo hadhowda luqadaas ay tahay. tusaale ka soo qaad Lua waxa loo dhahay waxa ku samaysaa Java. JavaScript ku barat. haddii marka aad fahansanta conceptiga kaliya waxa u baahan tahay okay Java syntaxka sewa saas waa okay ana logic dabaqayo. Loop waa sameynay function waa qoraysaa. Python sidoo kale. kaliya hal mar inaad fahantaa laga rabaa luqadaha kale dhan the same way logicooda waxba kuma kala duwana waxay kala duwan yihiin syntaxka sida qoraalkaas loo qoraayo. okay now marka conceptigi waa fahantay 2 minutes istaajisay 2 minutes su'aalihi ka soo baxay dhan waa ka jawaabtay node ka qoratay. okay node ka kale xigi doon wuxuu yahay haddii macalinka uu qorayo code-kii marka inaad qorto abuuq ku qorto adoo waliba qaab su'aal isku weydiinayo. okay line-ka muxuu qabanayay so leenkan waxaas loo talgalay note garay degdeg leenka koowaad qortay leenka labaad okay waxaana laga waday okay leenka saddexaad labadii daqiiqo marka waa fahantay waa joojinaysaa next waxa uu gudbay 2 daqiiqo kale so 2 daqiiqo kale hadana fahmaysaa marka fahanto sidii same process soo maraysaa su'aaliye isweydiinaysaa note-kii qaadanaysaa at the end of the video 10 daqiiqo kadib ama 10 kaas markuu ku dhamaado oo 10 kaas daqiiqo waxa haysataa faham macquul ah oo u baahan inaad si dhameystirto. marka waxa laga yaabaa first inaadan wada fahmin wax meesha ku wada yaalo dhan 10 kaas daqiiqo kadib waxaad samayn kartaa note-kaaga adigoo isticmaalaya in computerka aad ku qorto. waa samayn kartaa in macalinka aad dib u daawato laakiin isku day marka koowaad in maskaxda aad ku qasabto waa la qabsan doontaa dhib ma laha. maalmaha koowaad inaad dib u aragtay laga yaabaa dhahdiniyo waxa culeys waa saamaxa waa ku qasbanta hadda inaad wadada culeys ka qaadid. law mid waa xanuunka hadhowdii waxa u dul qaadanaysaa shalaateeda ama xanuunka hadda oo discipline-ka qaadanay oo ah ina horta waxaan la qabsato jirkaaga ama gacantaada markii la qabsay maskaxdaada way ku fududaanay hadhowdii ma u baahan inaad ku socdo. hadda wax walba baranayo cusub ani inta badan waxaan aragtaa nooc 10 sharxay waxnaas waxa sharxay ama waxaan barto 5% bas idin soo gudbiya 95% kal dhan waxaan qabto waxa wax lee bartaa 10 qaato koorsa qaato buuga akhriyo document akhriyo and reference aan raadiyo 95% time-kayga ani wax barasho ku jira wax lee bartaa waxa consume gareeya. so waxa consume gareeya am podcast aan dhageysto ama YouTube aan daawado oo qof la wareysanayo ama interview wax kala bax qof experience-giisa raadi 95% ani consuming kaasa wada wax idin soo gudbiyo 5%. so 95% ga sustainable ugu dhiga notice kaas iyo fahamkaas ayaa anfaco oo hadhowdii aan long time 10 loop markaan fahmay ilaa hadda meeqsana laga joogaa. so ilaa hadda luqad walba oo tag loop iyo waxa ismuudiyo sababtoo already waa fahmay concept ahaan u fahmay ma xifdinin marka aad ina xifdis laga maro ina concept ahaan u fahanto. marka maanta wixii ka dambeeyay isku day in steps-kaas asmaysan dhicin in koorso 10 saac soconaysa aad daawatay oo marka dhameysana aadan waxba helin. arrinkaas iisan soo laabanin waxa uu gudbi karna marka waxa waaye in steps-kan hadda ay sheegay aad tijaabisaan oo node marka koowaad aad qaadataan kadib computerka aad dib ugu qortaan computerka marka qoraysid aad ka tixraacdo node-kaaga wixii aad fahmayso markaas macalinka video-giisa ku laabo okay meeshan saas ay taana ka dhigaa. believe me after that time or at practice kaas samayso different ya dareemay conceptigaas aad different u dareemaysaa. marka waxa kale oo jiro waxyaalo tutorial hela dhahayo adiga more on waxa jiri doono in talooyin badan oo markaas aad soo gudbinayo okay wixii problem markaas aad dareemaysaan programming ahaan wali wadaagi kartaan qaybta hoose commentiga anigana waxaan isku dayi doonaa inaan video ka soo diyaariyo aan kaga soo jawaabo su'aalahaas ama issues idin dareemayo. marka aan aragno commentiga nagu wadaag wixii markaas experience-yaaga aad sidoo kale qaabka ku shaqeysay idin dadka la wadaag haday wax faa'iido u noqon lahayd ama ka faa'iideysan lahaayeen aniga experience-aas idin la wadaag qaabka markaas oo beginner issues ay sameeyaan iyo qaabka ku xalinayo. marka qof walba insha Allah oo programming markaas bilowga ah oo baranayo in tilaabadaas ku dayo wixii kaaga soo baxo oo feedback ana waana la wadaagi kartaa. aad ma santii waa imsiidin leh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. intaan kulmi doon video noocan oo kale si aan u geliyo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.